boqol sano 200 sano ka hor la kala dhici jiray laakiin qaabkan doqonnimada oo kale maahan dhacyan arki jirna maaha waxaan rabaa marka inaan idin iraa awalan horta ilaahay ka cabsada isdajiya oo kalsooni iyo dadnimo iyo kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu saalo ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaada uu barakeeyo inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baariya hasiyo qof walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa in jannatul firdaws ala ilaahay uu ku abaalmariyo dambigood iyo dambiga waalidkoodana ay baweyne hadda fa dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo qof walba muuqaalka leegta ku qabto ربي سبحانه وتعالى عن كبرينا إن فرج غير قبل إلهي وفر أدون كنا نمعي برواقه وكسيه حاسد كوحان لنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحاكودا بين يهوك يقصاره محيا لي حاسد كفائدة ملعا قيبته وصيح فريمها أيو حاسد ككسو هل دونا وانا ميدك أدون كقريبي لايك تلعق ميه موقالك لايك تكوكا بإسكدا حاسد مدى هوك يقصارها كوكودا حاسدو إلهينا أمدها كاقبته وواحا قريبي أدون كأن جوغنو ربي سبحانه وتعالى وقلنا أبي أي حاسدك حاسد الحاسد لا يفلح waxaan eegi doonaa warbixin xasaasi ah si degan u fiirso kuna saabsan nin ganacsada ahaa oo 100 milyan dhacay horena aad ugu daawateen muuqaaladii hore waxa soo baxay lacagta uu dhacay oo hore loo sheegay cadadeeda inay ahayd 67 milyan in lacagtaasi ay gaarayso ilaa 100 milyan iyo waliba shakhsiyaadkii ninkaasi la shaqeynayay dadka masaakiinta marka laga soo tago siyaasiyiintana dadka masaakiinta ee qurba joogta lacagaha ka soo aruurinayay oo guryo ka dhisanaya magaalooyinka Nairobi muqdisho oo Nairobi iska dhax fadhiya hadaba waxaan eegi doonaa halkuu ayuu u baxsaday ganacsade Cabdullaahi Muhammad Ali oo loo yaqaan Cabdullaahi Maalin madaxna ka ahaa Maalin company ayadoona lacagaha uu dhacay ay u badan yihiin lacaga hore laga dhacay dadka shacabka Soomaaliyeed isla markaana lagu talagalay ummadda Soomaaliyeed oo si dadban ay u leexsadeen dad siyaasiyiinta lacagaha laga dhacay oo soo tarayaan magacyadooda waxaan idin soo gudbin doonaa siyaasiyiin badan oo tuhun laga qabay in lacaga hore ay u dhaceen oo hadda ku jira shirkadan liis la helay magacyada siyaasiyiinta ku jira iyo waliba lacagaha siyaasigan ganacsadahan Cabdullaahi Maalin uu ka dhacay hadaba muuqaalka si degan u fiirso si ay u ogaatid dadkan lacagihii ay dhaceen oo ay ka dhaceen shacabka oo ayakii laga sii dhacay waa arin la yaab leh inkastoo dadka lacagaha laga dhacay ay ku jiraan dad masaakiin ah oo ku nool qurbaha sida Yurub Mareykan Canada Australia iyo waliba wadamada Carabta waxa la yaab leh in dadka lacagaha laga dhacay ay ku jiraan hooyooyin masaakiimaha gabdho garoobiyaha oo ka shaqeysta Sacuudiga kuwaasi oo lacagihii ay shaqeynayeen ama ay ku shaqeynayeen guryaha ama ay ku ahaayeen qadaamiinta shaqaalaha guryaha ay dhigteen company-gan ku yaal Nairobi dabadeedna lacagihii ay ka raaceen lacagihii siyaasiyiinta laga dhacay inkastoo Cabdullaahi Maalin mudnaanta ay ahayd inuu siiyo una u soo celiyo ayna qasab tahay inuu u soo celiyo dadka masaakiinta ah lacagaha uu ka dhacay ayadoona siyaasiyiinta lacagaha uu ka dhacay muhiim ay tahay in Maalin ay kula xisaabtamaan adduunka laakiin waxa muhiim ah dhamaanteenba in door muhiim ah aan ka ciyaarno dadka masaakiinta ee shacabka ee ka shaqeynayay guryaha kuwa ayuutooyinka Yurub iyo Mareykanka iyo Canada kaga jiray lacagihii ayuutadana gashtay company-ga Maalin dabadeedna Maalin uu ka dhacay in aan ka qayb qaadano in dadkaasi lacagahooda loo soo celiyo company-gan Maalin wuxuu shaqeynayay ku dhawaad in ka badan muddo 10 sano ah waxaana lacaga gashtay dad boqolaal ah ama kumanaan ah oo Soomaali ah kuwaas oo siyaabo kala duwan lacagaha u gashtay lacagahana u dhigan jiray company-gan uu madaxda ka ahaa ninkan lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Muhammad Ali Cabdullaahi Maalin Master Maalin wuxuu dhistay company lagu magacaabo company-ga Maalin oo ka shaqeyn jiray dhismaha guryaha iibka guryaha iyo waliba maalgelinta goobaha ganacsiga Maalin Training Group waxa uu ahaa company dhisan in ka badan 10 sano waxaana saamiley ku lahaa ama lacaga badan kashtay kumanaan dad ah oo ku kala sugan qaaradaha Afrika Aasiya Mareykanka Yurub iyo waliba Australia waxaase lacagihii hal mar la baxsaday ninkan lagu magacaabo Cabdullaahi Muhammad Ali oo loo yaqaan Cabdullaahi Maalin madaxna ka ahaa company-gan Maalin waxaase ninkan la shaqeynayay oo lacagaha u soo aruurinayay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Muhammad Xasan
حسن عن رهده محمد حسن علمي wuxuu lacagaha ka soo qaadi jiray dadka ku dhaqan qaaradda Yurub Mareykanka Australia iyo waliba wadamada Carabta ninkan oo da'diisa lagu qiyaasay 60 sano waxa maxamed xasan cilmi uu haystaa baasaboorka Denmark waxaana shaqashamaadkii uu soo guuray dalka Ingiriiska halkaas oo asii nin kale oo lagu magacaabo Ali Elay ee ka furteen maqaayad gaar ahaan xaafadda Wembley loo yaqaan ee ku taal magaalada London waa ninka ugu badan lacagaha ugu badan ka soo aruuriyay dadka masaakiinta ee shacabka waxaana magaciisa la yiraahdaa maxamed xasan cilmi waxaana magaalada wuxuuna ka sugan yahay magaalada Nairobi ayadoona halkaasi guryo badan uu ku leeyahay uu ku qoray wiilkiisa Cabdullaahi maxamed xasan cilmi waxayna qaraawo dhaweeyeen ninkan lacagaha la baxsaday lacagta ku dhow 100 milyan ee lagu magacaabo Cabdullaahi maxamed cali maalin mar kale ayaan ka sheekeyn doonaa ninkan lacagaha ka soo aruuriyay dadka shacabka ee maxamed xasan cilmi laakiin aanu eegno halkee ayuu jaani cirib dhigay ninka lagu magacaabo maxamed Cabdullaahi maxamed cali maalin ahaana gudoomiyihii kambaniga maalin oo hal mar la baxsaday lacagta dhan 100 milyan ee dollarka Mareykanka ah waxaana dad badan oo aan kamid ahay aan isweydiineynaa shirkadda waxay leedahay boor kaas oo saxiixooda uu ku baxayo lacagahan markii laga soo qaadayo bangiga maxaa dhigay dadka boorka ah magaalada Nairobi haddaysan la ogeyn qorshaha lacagaha uu ku dhacay Cabdullaahi maxamed cali maalin waxaase mas'uuliyadda lacagahaasi la dhacay iska leh shakhsiyaadka boorka ka ahaa kambanigan ninkan madaxda uu ka ahaa ee lacagaha uu kala waxaase muhiim ah dadka lacagaha halkaasi dhigtay inay la xisaabtamaan xubnaha boorka ah oo wali ku sugan magaalada Nairobi lana ogaa qorshihii lacagaha uu ugu baxsaday ama uu kaga lacagahaasi uu xaday ninka lagu magacaabo Cabdullaahi maxamed cali maalin siyaasiyiin tiro badan ayaa soo baxaysa in kambanigaasi lacagaha ay dhigteen oo lacaga ay ku lahaayeen waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la sheegay in halkaasi ay u taalay asigii wasiirka amniga lacag dhan 12 milyan oo dollarka Mareykanka General Gafow taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda oo lacaga badan ka sameeyay hay'adda nabad sugidda xilligii taliyaha uu ka ahaa iyo waliba xilligii uu haystay immigration-ka ayaa la sheegay in halkaasi ay u taalay lacag dhan 3.8 milyan waa 3.8 milyan oo dollarka Mareykanka Taabid Cabdi Maxamed duqii hore ee Muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir lacaga uu ka faa'iiday xilligii uu ahaa gudoomiyaha gobolka ayaa la sheegay inay meesha u taalay lacagtaas inay dhan tahay 3 milyan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu taalay lacag 7 milyan oo dollarka Mareykanka marwada madaxweynaha Soomaaliya Seenab Cabdi Mucallim ayaa la sheegay in lacaga malaayiin ah ay ku lahayd goobtaasi lacagaha laga dhacay ee 100 milyan laga dhacay waxaana sidoo kale dadka lacagaha halkaasi u yaalay kamid ah Umar Faaruq oo la dhashay xaaska madaxweynaha ninka ku qoran hantida madaxweynaha wakiilkana ugu ah guryaha la iibiyo oo lagu magacaabo Maxamed Dheere qaraabana ay yihiin madaxweynaha ahna lawyer Kenyana waxa la sheegay inay u taalay lacag ka badan 8 milyan oo dollarka Mareykanka ah gaashaan la sare Kofi taliyaha immigration-ka 2.5 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa la sheegay in halkaasi ay u taalay waxa sidoo kale dadka lacagaha halkaasi u yaalay kamid ah madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Danni waxa la sheegay 2 milyan inay u taalay goobtaasi waxa sidoo kale dadka lacagaha badan halkaasi ay kaga dhumeen kamid ah markaan si total ah magacyadooda aan idinku aqriyo wasiir Ducaale Fahad Yaasiin ra'iisul wasaare Khayre madaxweynaha Puntland Danni General Gafow Cabdullaahi Gambe maamulaha hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho Colonel Maxamed Jimcaale Kofi taliyaha immigration-ka Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada wasiir Nuux oo ah wasiirka diinta iyo awqaafta madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne Waare ninka lagu magacaabo أحمد محمد إسلام أحمد مذوبة مدحوينها جبلان والله شاقي كل واد 4 مليون إنه أوتالي قوبتاسي وعاسدو كله حمناها هالكاسي لعقاها أويالين كمدا عبد الولي قريرة أو كمدا حزبك قدوميها وكي هي عبد الرحمن عبد الشكور سياسي عبد الرحمن عبد الشكور أيا الله شاقي لعق 2 مليون إنه يوجد جرتي جنبني جمالين عبد الفتاح شاوي يتري كأنك إمبريشنك عبد الشكور علي ميري أو كمدا برلمان كصوماليا مدحوينها صوماليا قراوة دوائيين نينك اللي مقعاو وزير جمال حسين وزير كقرشينتا الدولة الصومالية سنة الأوغاس نجي أو كمدا حبناها وقف فرعون تاجرة وين هو محمد عبد الله فرماجو سفير كصوماليا كينيا وفريا محمد نور أحمد ومحمد نور ترسن يصيدوا كله نينك اللي مقعاو حسين دجوينه أو ها قدومي هراء قبل بنادر وقدومي كحجنك هراء قبل كبنادر حقه مالية سعيد كمبالي أو ها مدحي هماموسكا
madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale waxaa xubnaha halkaasi lacagaha u yaalay ka mid ah senator dhagdheer iyo sidoo shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor ibraahim dheere oo ah gudoomiye ku-xigeenka wakhtigan ee gobolka banaadir xagga maaliyadda cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan siyaasiyiinta axmed ducaale geele xeef madaxweynaha galmudug cabdicasiis iyo sidoo kale cabdisamad macalin maxamuud uu dhalay gudoomiyihii ahlu sunna macalin maxamuud xasan cabdullaahi farmaajo waxaana lacagta cabdisamad macalin maxamuud halkaasi u taalay lagu sheegay inay tahay lacagtii dowladda soomaaliya ay siisay ahlu sunna wal jameeca oo lacag dhowr malyan ah sidii loo waday waxaa la geliyey gambaniga maalin waxaana lacagahan ay u badan yihiin lacaga laga soo dhacay shacabka soomaaliyeed waxaana dib u dhacay oo asigiina sii dhacay ninkan ganacsadaha ee lagu magacaabo cabdullaahi maxamed cali maalin warar xoogaal ah oo aan helayna ayaa xaqiijinaya goobta master maalin uu ku sugan yahay waxaana la wadaagi doonaa hay-adaha amniga ee caalamiga ayadoo aan idiin soo gudbin doona habeen dambe xog muhiim ah oo ku saabsan cod qarsoodi ah oo aan ka dumnay ganacsadahan lacagaha badan dhacay cabdullaahi maxamed cali maalin gordhow la soco xogtaasi hadduu allah awoodda leh u saamaxo